ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إلهي بقرآنك إنه قشق في سورة فصلت وحول مالين باصو سعوتا أعداد إلهي عز وجل نار تحق يدا الله صورين دونا أيكم ملائكة حق دمائك قراء عيسو مرقاسا بنك قياما لكيني دونا مرقاسا وحا مرقا كبوحين دونا با إلهي يري مقال كودي با مرقا كبوحين دونا أرقوغي با مرقا كبوحين دونا جر كودي هرقوغي با مرقا كبوحين دونا مرقاسا أوراني دونا مرقا نار تلقوا وضا قرو أفكي الحنان الله فربي أوران دونا أنكو إني كان بدبادين إني ونار تينات كود عدن نيقب بدبادين يبو أفكي ليهي محا مرقا يقبو حسن مادي قارسانا مرقاسا قعنتي اللوغتي با هالليسا وإشي يدكتي با هالليسا أوران دونتا أنكو اسكمانو هالليني إلها وحوى اللي با كهالليي أيا نغا هالليي بي أورانيان واللي با إساقا مركا هوريني أبوري بيير بو إنغا أبوري وانا كان حقي سأون نغاني سامبا لغو أورانيان هذا كاميرا بني آدمكو أي سمسين أتكعب سنيسو إلهي كو أبوري أتكحشوني ويدي waxaad doonto aad eegayso waxaad doonto aad ku hadlayso sidaad doonto aad u soconayso waxaad ogaataa maalin baa soo socota kaamirada kugu rakiban oo dhan laga warrami doona ugu dhagtu way warrami oo maxay sheegi dhagtu waxaad ku dhageysanaysaa bay sheegi ishaadu way warrami oo maxay warrami doontaa waxaad ku daawanaysaa bay sheegi doontaa harigan uu warrami doona harigan muxuu sheegi doona wuxuu ku koray xaraam ba mise xalaal uu sheegi doona jirku beentuna waxay iska noqotay mashruuc lagu shaqaysto lagu foofo karun sheegana zamankan waxa loo arkaa wadaad ka beenalahana waxa loo arkaa war magaal ninkaas waa nin reer magaal bahal inkaaran bay yiraahdeen qolada reejkiga inkaaran afant maalin baa iimaan doonto waxa soo xubno bini aadan oo jirkeena ku jira warka ay sii deyni doonaan halkee loo baxsan doona maalinta baliishay اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أفكنا لغا قبني دونا با إلهي يري عطي اللغوه كورمي دونا با إلهي يري عبسدي الله رب العالمين عبسدي سيمركي إنه يراتي ayaa dhacday dad badan oo muslimiin inay been iska sheegaan inay wax walba ka shaqeeyaan inay wax walba daawadaan inay wax walba dhageystaan inay siday rabaan ay u socdaan taasa keentay markaas cabsidii ilaahay marka qalbigeena ku yaraatay qalbiga shaakirku waxa weeyaan waa qalbiga labada sifo xambaarsan bay culimadu leeyihiin al-khawf wal-rajaa waa qalbiga ay ku jirto cabsida ilaahay baa qalbiga ku jirta marna maaragtaan rajada ilaahay baa qalbiga ka buuxda marna uu cabsoonaya oo ilaahay qabashadiisu ka cabsanaya ilaahay ciqaabadiisu ka baqaya ilaahay xisaabtiisu ka baqaya ilaahay la kulankiisu ku si talagalu ka baqaya marna waa muumin weeyaano rajaaga ghalib waa rajaayo raxariista ilaahay buu rajaynaya ilaahay jannadiisi buu rajaynaya ilaahay naxariis badan inuu yahay buu garanaya ilaahay dambi dhaafay inuu yahay buu garanaya cabsidana qofka muslimka waxa laga rabaa waa inuu caafimaadka qabo weeyaan rajadana waxa laga rabaa waa markuu dhaco bukoodo xanuunsada laga rabaa inuu rajadu soo baxdo idaad caafimaadka aad hayso ee dhalinyarada aad tahay ee amniga aad haysatid ee arsaaqada aad haysatid waxa la doonayaa inaad ilaahay ka cabsooto maalinta da'daadu ay weynaatay 70 aad gaadhid ama 75 aad gaadhid ee dhinac walba laga qabtay xanuunku uu bato ee hadeetoola aad dhinaca dhulka dhigtidna waxa la doonayaa inaad tiraadid allah ilaahay baan haystaa ilaahay waa kariim rabbi kariima oo raxiima oo ghafuura oo shakuura oo cafuu ilaah kariima oo dhaafid badan oo naxariis badan ayaan u tagayaa inaad tiraadid baa loo baahan yahay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayaa sankaraadkii markuu xanuunsaday Uthman ibn Affan ba u yimid markuu Abdullah dhulka uu ku dhacay markaasuu soo buuqday baa leeyahay wuxuu ku yiri
maxalkeen lagu maxaad ka cabanaysaa bal ii sheeg halkee kuugu daran oo maxaa ku haya oo macnaha halkee kuugu daran markaasuu meesha iigu daran ma kuu sheegaa dunuubtaydii baa iigu daran buu dunuubtaydii innaka maanta qofku markuu xanuunsado la yidhahdo halkee kuugu daran muxuu sheegaa meesha laga hayo taaban halkaas laga haya halkaa kala laga haya Abdullah ibn Mas'ud meel xanuunaysa ma sheegin waayo baahidooda makhluuq uma sheeganayaan baahidooda ilaahay bay u sheegtaan makhluuqa baahidooda way ka qarsadaan baahidooda ilaahay bay u sheegtaan walaakiin wuxuu yiri meesha iigu daran waxa weeyaan waa dunuubtaydii fama tashtahi bukayl had hadana naftaadu ay jeceshahay qofku markuu xanuunsan yahay waxa la war naftaadu maxay doonaysaa bal noo sheeg markaas caana yari keena boona خضرة ريكان بريس كان يقاضو ولكن عبد الله بن مسعود وحيري ما وحى نفس صديدو أي دون يسمانتا وحويان وإلهنا حريستيس الكريم في بيتك بشارو وشوي هذه برشة القرآن كله قلي شري السفر هذا واحد كبر نساء القرآن كي علومة الإسلام كأديكو أوتشوغا هويجاجا أما قوت هذا شباب dugsiga online-ka ee barashada quraanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxa kamid ah barashada quraanka iyo higaada culumta shariicada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka quraanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaas si dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku